bishii August 1990 Ciraaq waxay ka yaabisay caalamka markii ay xoog ku qabsatay daliskeeda Kuwait. Kuwait waa wadan dhul ahaan aad u yar, ciidan ahaana aan awood badan lahayn, mana awoodaan inay iska difaacaan ciidamada awoodda badan ee Ciraaqiyiinta. kumanaan milatariga Ciraaqa ayaa ka gudbay xuduudda waxaana ay weerareen Kuwait. saacado kooban oo kaliya kadib ciidamada Ciraaq waxay qabsadeen magaalada caasimadda ah ee Kuwait. meelaha ciidamadu markiiba ay la wareegeen waxa koow ka ahaa xaruntii baarlamaanka ee Kuwait oo ay la wareegisteedu ku qaadatay muddo dhowr daqiiqo oo kaliya. dhowrkii maalmood ee xigay waxaa gacanta ay ku dhigeen guud ahaan waddanka Kuwait oo aan baaxad ahaan sidaas u weynayn, waxaana ay gaareen xuduudaha kala duwan ee Kuwait la leedahay daliskeeda dhinaca badda iyo bariga labadaba. Kuwait waxay leedahay wax soo saar shidaal oo ka dhigay boqolkiiba 10 waddanka soo saara wax soo saarka guud ee shidaalka dunida. sidaas awgeedna Saddam Hussein madaxweynihii hore ee waddanka Ciraaq iyo ciidankiisa milatarigu waxay diiradda saarayeen ceelasha saliidda ee Kuwait oo ku yaala deegaanada ku dhararan dhinaca xeebta, waana halka ciidamada Ciraaq ay ku horeeyeen qabsashadeeda. sidoo kale waxaa ciidamada Ciraaq ay isku gadaameen xuduudda koonfureed ee Kuwait la wadaagta waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ah meesha kaliya ee dhinaca bariga ay kala wadaagto waddan aan Ciraaq ahayn. ciidamada Ciraaqiyiintu waxay ka hortagayeen in gurmad degdeg ah oo dhinaca bariga ahi uga iman doono dhinaca Sacuudi Arabiya, waxaana xilligaasi jiray cabsi iyo su'aalo ay caalamku iska weydiinayaan in Saddam Hussein iyo ciidamadiisu aanay ku joogsan doonin Kuwait oo kaliya, oo ay suuragal tahay qorshaha inay ugu jirto inuu qabsado badi wadamada khaliijka oo Sacuudigu ka mid yahay. marka la eego xuduudda Kuwait iyo Sacuudiga ee ay qabsadeen Ciraaqiyiintu, waxaa 200 oo mayl u jira qaar ka mid ah ceelasha saliidda ee waddanka Sacuudi Arabiya oo ah dalka ugu wax soo saarka badan dhinaca shidaalka dunida oo dhan, waxaana farta lagu godeeyay lagana cabsi qabay haddii Saddam Hussein uu ku duulo Sacuudiga intaasi macnaheedu uu noqonayo inuu la wareegay kala bar wax soo saarka caalamka. warbaahinta reer galbeedka qaarkood markaasi waxay ku warrameen sababta kaliftay in Saddam Hussein uu qabsado dalka Kuwait inay ahayd dhaqaale darro soo wajahday maadaama dhaqaale badan uu kaga baxay dagaalkii uu sanadihii xilligaasi ka horeeyay uu la galay dalka kale ee dariska yihiin ee Iiraan. hogaamiyaasha caalamka xilligaasi ayaa ka walaacay duulaanka Saddam Hussein uu ku qaaday guud ahaan waddanka Kuwait. This will not stand. This aggression against Kuwait. What has happened is a total violation of international law. Please raise their hand. madaxweynihii xilligaasi ee waddanka Mareykanka George Bush, haweeneydii ra'iisul wasaaraha ka ahayd boqortooyada Ingiriiska xilligaasi Margaret Thatcher, iyo golaha ammaanka ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ayaa cambaareeyay oo ka soo horjeestay duulaanka Ciraaq ay ku qabsatay dalka Kuwait, waxaana ay go'aansadeen inay qaadaan tallaabo kasta oo lagu horjoogsanayo in ciidanka Ciraaq ay sii wadi karaan duulaankooda, isla markaasina laga difaaco inuu u gudbo wadamada gobolka oo Sacuudigu kow ka yahay. hase ahaatee 6dii bisha August oo ku beegnayd 4 maalmood kadib markii ciidamada Ciraaqiyiintu ay qabsadeen Kuwait, kooxo saraakiil sare oo ka socday aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa u duulay waddanka Sacuudiga si ay ula kulmaan boqor Fahadkii Sacuudiga, isla markaasina ay ugu soo bandhigaan in qorshaha ay rabaan ay tahay in Sacuudiga ay ka difaacaan duulaan milatari oo kaga yimaada Saddam Hussein. waxaa la tilmaamaa inuu ogsoonaa in ciidamadiisa boqortooyadu xilligaasi aanay u babacdhigi karin milatariga Saddam Hussein oo xilligaasi awood ballaaran ku lahaa gobolka oo dhan, waxaana boqor Fahad oo ka fogaanaya inuu shaaciyo dagaal uu la galo Saddam Hussein si aan loogu arag dagaal u dhexeeya laba waddan oo muslimiin ah. waxa uu doorbiday kuna raacay dalabkii ay u soo bandhigeen wufuudda Mareykanku ee ahaa in iyagu ay ka difaacaan gulufka milatari ee Saddam Hussein.
markii intaas ay isla qaateen wufuuddii Mareykanka iyo boqor Faahadkii Sacuudigu ayaa saacado yarun kadib waxa la sameeyay daadgurayntii ciidan ee ugu ballaarnayd ee la arko wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida 250,000 oo ciidamo British iyo American isugu jira oo laga soo qaaday saldhigyo ku yaala Mareykanka iyo qaaradda Yurub ayaa soo cagadhigtay saxaraha waqooyi ee waddanka boqortooyada Sacuudi Arabia. intaasi kadib Mareykanka iyo Ingiriiska oo iskarabsanaya waxay ka fakareen hawlgal kasta oo lagaga hortagayo Saddam Hussein in laga dhigo hawlgal caalami ah oo aanay kali ku ahaanin Mareykanka iyo Ingiriiska oo kaliya si aan loogu sawirin Mareykanka iyo Ingiriisku inay duulaan ku qaadeen waddan Carbeed. waxaana Mareykanka iyo Britain ay hawsheeda bilaabeen sidii ay ugu qancin lahaayeen wadamo badan inay ku soo biiraan hawlgalka Saddam ka dhanka ah. Mareykanka iyo Ingiriisku waxay ku guuleysteen in 30 waddan oo adduunyada ka mid ah oo ay ku jiraan wadamo Carbeed sida Masar iyo Suuriya ay ku soo biiraan ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska ee ku sugnaa saxaraha Sacuudiga. waxaana loo oran karaa magac ahaan marka laga tago guud ahaan may ahayn wadamadaasi kuwa ka muuqanaya xulafada marka la eego awoodda ciidan ee Mareykanka oo ahayd mid ka badan taasoo micnaheedu noqon karo magac ahaan in wadamo badan ay ka qayb galeen hawlgalka, balse dowladda Mareykanka iyo ciidankeedu ahaa awoodda ugu badan ee dagaalkaasi hagaysay hawlgalkana hogaaminaysay. in aan marka dambe Mareykanka iyo Ingiriiska oo kaliya aan si gaar loo saarin eedda dagaalkaasi eedda iyo dhaleecayntana ay la wadaagi doonaan dhammaanba xulafadii ka qayb gashay dagaalka. hawlgalka Saddam Hussein lagaga soo horjeeda waxaa hogaaminayay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dalka Mareykanka oo lagu magacaabi jiray General Lomin Shorkat. ciidamada Mareykanka iyo Yurubiyaanka oo tababarkooda ku soo qaatay dhul aad u cagaaran oo cimilo ahaan degan waxa haatan ay ka dagaal galayaan saxare aad u kulul oo dabayl badan. xulafada weli waxaa haysata cabsi ah in Saddam uu weerar ku soo qaadi karo Sacuudiga. marka ay meegno ciidamada Ciraaq iyo joogitaankooda gudaha Kuwait waxaa la tilmaamaa in ciidamada Ciraaq ay tacadiyo foolxun ka geysteen Kuwait intii ay ku sugnaayeen, kuwaasoo isugu jira dilal ciidamada Ciraaq ay geysteen, garaacis iyo arrimo kale oo bani'aadanimada ka dhana. qaar ka mid ah dadka shacabka oo ka soo jeeday wadamada reer galbeedka oo Kuwait ku noolaa ayaa maxaabiis ahaan loogu qaaday magaalada Baghdad. waxaana la soo bandhigay sawirro muujinaya Saddam Hussein oo tagay meel ka mid ah meelaha dadkaasi lagu hayay ee magaalada Baghdad, dadkaas oo qaarkood lagu tilmaamay inay ka mid ahaayeen muwaadiniin u dhalatay waddanka Britain. Stuart عنده حليب. Does Stuart get his milk? Yes. Stuart. ciidamada Ciraaq waxay sii adkaysteen isuna diyaariyeen inay difaacaan Kuwait ay qabsadeen. kumanaan ciidamada Ciraaqiyiinta ayaa lagu gadaamay xuduudda Kuwait iyo Sacuudi Arabia oo ah dhinaca ay ka imanayaan xulafada isa soo bahaystay. dhinac kasta oo xuduudda Kuwait waxa isku xiray ciidamada Ciraaq dhinaca badda iyo bariga labadaba. dhanka Ciraaq gudaheeda oo soo xigta soodinta waddankaasi uu la wadaago Kuwait waxa iyaguna diyaar ku ahaa kumanaan kale oo ka mid ah ciidamadii loo yaqaanay ilaalada jamhuuriga oo sugaya inay mar kasta xoojiyaan ciidanka Ciraaq ee ku sugan gudaha Kuwait. Saddam Hussein waxa uu booqday goobaha hore ee joogaan ciidamadiisu
hogaamiyaashii caalamka galbeedna waxaa ka dhammaaday dulqaadkii xaaladaasi waxaana u muuqday calaamado muujinaya in Saddam Hussein aanu ciidankiisa kala baxaynin Kuwait. golaha ammaanka Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ayaa ka fadhiistay xaaladda waxaana ay meel mariyeen qaraar lagu bedelayo howlgalkii xulafada oo markii hore ahaa in Sacuudiga oo kaliya laga difaaco duulaanka Saddam Hussein, balse qaraarkani dambe ay isku raaceen golaha amniga ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa waxa uu dhigayaa in xulafadu dagaalka ay galaan haddii Saddam Hussein uu muddo 6 isbuuc oo kaliya uu kagala bixi waayo waddanka Kuwait ciidamadiisa, waxaana qaraarkan uu furayaa in ciidamada iskarabsanaya ee Mareykanku uu horkacayo ay xoog kaga saari karaan ciidamada Ciraaq ee Kuwait ku sugan. dadweynaha Mareykanka ayaa ka cabsi qabay in dagaalkani horta leh ee ay gashay dowladoodu uu yahay mid aan loo baahnayn oo khasaare kala gelin kara dhaqaalaha Mareykanka, iyaga oo maanka ku haya isla markaasina xusuusan dagaalkii Mareykanku uu ku qaaday dalka Vietnam oo dhaqaale ahaan jug badan ay ka soo gaadhay waddanka Mareykanka. balse arrintaasi waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee xilligaasi dalka Mareykanka George Bush. One American soldier has to go into battle. That soldier will have enough force behind him to win and then get out as soon as possible. This will not be another Vietnam. haddii dagaalkani askarta Mareykanku ay ka guulgaari waayaan dib ayaanu uga soo bixi doonaa dagaalka, mana noqon doono dagaalkani Vietnam tii labaad. sidaas ayaa uu dadkiisa u sheegay madaxweyne Bush. Saddam Hussein waxa uu ku adkaystay in haddii ay soo weeraraan ciidamada Mareykanka iyo xulafada la socotaaba uu khasaare gaarsiin doono, isagoo ku xisaabtamaya in shacabka Mareykanku aanay ogolaan doonin khasaare ka soo gaara ciidankooda dagaal ay la galaan ciidamada waddanka Ciraaq. dabcan 2 sannadood ka hor qabsashada Kuwait oo ku beegneyd 1988 Saddam Hussein waxa uu haystay hub fara badan waxaana laga qiyaas qaatay dad ka badan 5,000 oo qof oo ciidamada Saddam Hussein ay ku direen mid ka mid ah magaalooyinka ay Kurdiyiintu degaan, kuwaas oo waqti kooban ay ku dhinteen dad ka badan 5,000 oo qof kadib markii ciidamada Ciraaq ay adeegsadeen sunta halista ee saariinta iyo master gaasta loo yaqaano. isla arrintaasi ayaa baqay iyo walaac xoogan waxay ku haysaa ciidamada xulafada ee isu diyaarinaya dagaalka Kuwait inay kaga saaraan ciidamada Ciraaq, waxaana ay cabsi ka qabaan in ciidanka Ciraaqiyiintu ay adeegsan karaan suntaasi. sidaas awgeedna ciidamada xulafada waxaa loo tababaray sidii ay uga badbaadi lahaayeen inta dagaalku uu socdo haddii ay la kulmaan amaba loo isticmaalo hubkaasi kiimikada ee lagu tuhunsan yahay Saddam Hussein. ujeeddaduna waxay ahayd sidii loo yareyn lahaa khasaaraha ciidamada Mareykanka iyo xulafadaba ka soo gaari kara dagaalka. General Luman Shortka hogaamiyaha howlgalku waxa uu diyaariyay 2 qorshe oo dagaal. qorshaha koowaad waxa uu ahaa in ciidamada lugta oo dhan ay u dhaqaaqaan dhinaca waddanka Kuwait. qorshaha labaadna waxa uu qeexayay duqeyn cirka ah oo si toos ah loogu qaado gudaha waddanka Ciraaq, looguna burburiyo bartilmaameedyada muhiimka ah ee ku yaala magaalooyinka dalkaasi oo caasimadda Baghdadna ay ku jirto. 6 ka mid ah maraakiibta waaweyn ee diyaaradaha xambaara oo Mareykanku uu leeyahay oo ay saaran yihiin ilaa 400 oo diyaaradaha dagaalka ah ayaa Mareykanku uu soo tubay xeebaha Ciraaq iyo Kuwait. toddoba maalmood oo kaliya ayaa ka harsan xilligii Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa
golaheeda ammaanku Saddam Hussein iyo ciidamadiisaba ay u qabteen inay kaga baxaan guud ahaan waddanka Kuwait. in ka badan 700 oo kun oo ciidamadii xulafada ayaa haatan dagaalka diyaar u ah, waxaana ay ku sugan yihiin fulinta hore ee dagaalka, waxaana ay ka warsugayaan jaaniskii ugu dambeeyay ee wada hadallo labada dhinaca waa Ciraaq iyo Mareykanka ku dhex maraya magaalada Geneva ee dalka Switzerland. xogeeyihii arrimaha dibadda ee Mareykanka ee xilligaasi James Baker iyo dhiggiisa waddanka Ciraaq Tariq Aziz ayaa halkaasi ku kulmay si ay u raadiyaan xal diblomaasiyadeed oo lagaga baaqsan karo dagaalka. labadani mas'uulba waxaa si fiican uga warqabaan 100 kun oo ciidamo iyo 10 kun ee hubka ee la isu soo urursaday. Mr. James Baker, xogeeyihii arrimaha dibadda ee xilligaasi ee Mareykanka, isagoo ay ka muuqato cabsida ay ka qabaan hubka kiimikada ee Ciraaq, waxa uu ku booriyay wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaqiyiinta Tariq Aziz in aanay isticmaalin hubkaasi, waxaana uu xusuusiyay in Mareykankuba uu gacanta ku haysto hub nuclear ah. nasiib darro 7 saacadood oo wada hadalladu ay socdeen, ugu dambeyntii arrintaasi waa ay shaqayn weyday. shirkuna gebi ahaanba waa uu guuldaraystay, waxaana warbaahinta la hadlay xogeeyihii xilligaasi ee Mareykanka arrimaha dibadda James Baker. If Iraq should choose to continue its brutal occupation of Kuwait, Iraq will be choosing a military confrontation which it cannot win and which will have devastating consequences. haddii ay Ciraaq sii wado joogista Kuwait ay qabsatay, Ciraaq waxay dooratay tallaabo militari in laga qaado, waxaana ay la kulmi doontaa cawaaqib xumada ka dhalata, ayaa yiri Mr. James, xogeeyihii arrimaha dibadda ee Mareykanka. asaatee Saddam Hussein waxa uu muujiyay kalsoonida ah inuu u babacdhigi karo quwad kasta oo ka hor timaada, waxaana uu la hadlay dadka reer Ciraaq, waxaana uu u sheegay in ciidamada Mareykanka iyo xulafadiisuba ay ku tiirsan yihiin farsamada tiknoolajiyadda, halka Ciraaqna uu sheegay inay isku halaynayso ciidamo geesiyaala oo khibrad badan u leh dagaalka. Mr. Saddam waxa uu niyad samaan ka muujiyay inuu guulaysan doono isla markaasina uu dagaalka kaga adkaan doono xulafada isbahaysatay. habeen barka 15 bishii January 1991 waxaa dhammaaday xilligii kama dambaysta ahaa ee golaha ammaanka ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa uu u qabtay Saddam Hussein iyo ciidamadiisa Kuwait ku sugan inay kaga baxaan halkaasi. dunida oo dhan xilligaasi waxay u dhagtaagaysay waxa xigi doona waxa uu yahay iyo goorta ay isfarasaari doonaan kumanaanka ciidan ee la soo hordhoobay. si kastaba ha ahaatee, dagaalkii Khaliijku waa uu bilaabmay. saacadihii hore ee habeennimada, boqolaal ka mid ah diyaaradaha dagaalka xulafada ayaa la hubeeyey, loona diyaariyey inay hawada galaan si ay u beegsadaan bartilmaameedyada ay doonayaan. diyaaradaha dagaalka ee xulafadu waxaa duqayn toosa ay la beegsadeen caasimadda dalka Ciraaq ee Baghdad. meelihii ugu horreeyey ee la duqeeyeyna waxaa ka mid ahaa taawarkii ugu weynaa ee dhinaca isgaarsiinta oo ku yaalay magaalada caasimadda ee Baghdad. ciidamada Ciraaqiyiintuna waxay ku jawaabeen ilaa 3,000 oo gantaalaha lidka diyaaradaha oo ay kaga hortagayaan diyaaradaha soo weeraray magaalada Baghdad. bambooyinka dhulka ruuxa ayaa dhan kasta waxay kaga dhaceen magaalada caasimadda, waxaa sidoo kale ay duqeeyeen diyaaraduhu magaalooyin ka baxsan Baghdad. gantaalo laga soo tuuray maraakiib badda taagan ayaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday xaruntii quwadda laydhka ee waddanka Ciraaq, waxaana hal mar laydhku ka damay magaalada caasimadda ee Baghdad. xaaladda oo halkaasi maraysa ayaa Saddam Hussein, madaxweynihii hore ee waddanka Ciraaq, waxa uu ka fakaray dariiqo kasta oo tallaabo uu kaga qaadi karo xulafada, waxaana bartilmaameedkiisu uu noqday Israa'iil oo 700 oo mayl u jirta.
gantaalaha iskaatarka loo yaqaano ee masaafada fog lagu duqeeyo ayaa ciidamada ciraaqiyiintu waxay ku tuureen mid ka mid ah magaalooyinka Israa'iil waxaana ay shaaciyeen inay bartilmaameedsan doonaan meelo ay ka mid tahay magaalada Tel Aviv ee xarunta Israa'iil. gantaalkii ugu horeeyay ee Ciraaq ay ku tuurtay Israa'iil waxa uu ku dhacay dhismo warshadeed. warbixinii ugu horeeyay halkaas ay ka soo saareen militariga Israa'iil waxay ku sheegeen Israa'iil in lagu soo qaaday weerar kiimika. warbixinaha xilligaasi la qorayna waxa sawirro ay ka bixiyeen sababaha Saddam ku kalifay inuu duqeeyo Israa'iil waxaana ay ku sheegeen maadaama Israa'iil iyo Carabta ay cadaawad badan dhex taalo. Israa'iil iyo wadamada Carabta qaar ka mid ah ay garab siinayaan xulafada Ciraaq soo weerartay marka Israa'iil ay ka soo aargudato gantaalaha uu ku tuuray Saddam Hussein. wadamada Carabta qaar ka mid ah ee ku jira xulafadu in wadamada Carabtu ay gabi ahaanba iskaga baxaan xulafada Mareykanku uu hogaaminayo mar haddii uu bilaabmay dagaal u dhaxeeya Yuhuud iyo dal Carbeed sidaasina ay ku wiiqmi karto kuna burburi karto xulafada soo weerartay ee Carabta iyo reer galbeedka isugu jira. Mareykanka iyo reer galbeedka ayaa waxa Israa'iil ay u sheegeen inaanay wax jawaab ka bixinin duqeynta gantaalaha Saddam Hussein. ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Israa'iil ayaa ugu dambeyntii aqbalay inaanu ka jawaab celinin weerarkaasi. hasaatee xulafada ayaa u ballan qaaday Israa'iil inay ugaarsan doonaan meelaha ay ku kaydsan yihiin gantaalaha Israa'iil lagu soo tuuray. waxaana xulafada u bilaabmay weji kale oo baadigoobka gantaalaha Saddam Hussein uu ku soo weeraray Israa'iil waxaana ay raadiyeen meelaha gantaalahaasi ay ka yaalaan waddanka Ciraaq. diyaarado dagaal ayaa habeen iyo maalinba waxay gaafureegayeen hawada waddanka Ciraaq iyagoo raadinaya gantaalahaasi meelaha lagu kaydiyo. hasaatee duqeyntii Ciraaq ay ku qaaday Israa'iil ma joogsanin oo sideedii ayay u sii socotay iyadoo hawlgalkaasina uu socdo. hasaatee mid ka mid ah diyaaradihii ku hawlanaa raadinta hubkaasi oo Ingiriisku lahaa waxa soo riday ciidamada cirka ee dalka Ciraaq waxaana ay gacanta ku dhigeen duuliyihii diyaaraddaasi waxaana duuliyaha oo maxbuus ahaan ay u qabteen ciidamadu uu ka soo muuqday telefishinka qaranka ee waddanka Ciraaq isaga oo baaq u diraya ciidamada isbahaysiga iyo shacabka dalkiisa una sheegayeen xulafada ay joojiso dagaalka Ciraaq. This war should be stopped so we can go home. I do not agree on this war with Iraq. dhinaca kalena waxaa bilaabmay dagaalkii dhulka oo ay isku farasaareen ciidankii isbahaysiga ee ciidamada Ciraaq ee ku sugnaa gudaha waddanka Kuwait. Armist missile, I'll shoot down range. Take that bad boy out. laba maalmood oo dagaal u socday kadib xulafada Mareykanku oo horkacayay waxay qabsadeen meelo ka mid ah dalka Kuwait. dagaalkaasi waxaa ku dhintay 38 ka mid ah ciidamada Ciraaq kuwa kalena maxaabiis ahaan ayaa loo qabtay. sidoo kale 42 askari oo 25 Mareykan ay yihiin ayaa dagaalkaasi kaga dhimatay xulafada. duqeynta diyaaradaha dagaalka ee isbahaysigu ay ka geysteen gudaha waddanka Ciraaq ayaa sababtay dhimashada dad shacab oo Ciraaqiyiin ah. I miss my wife and my children. It's not fair. Nobody says something to stop this massacre.
Saddam Hussein weli ma raba inuu shaaciyo calaamado muujinaya ka bixitaankiisa Kuwait hase ahaatee siduu uga arguto duqeynta cirka ee xulafadu ay la beegsatay isla markaasina ay ka geysatay magaalooyinka Baghdad ay ka mid ka tahay ciidamada Saddam Hussein ee Kuwait ku sugnaa waxa ay dab qabatiyeen dhammaanba ceelashii saliidda ee dalka Kuwait u lahaa. ciidamada isbahaysiga ee Carabta iyo reer galbeedka isugu jira waxa ay isla qaateen istiraatiijiyad qarsoon oo gudaha Ciraaq ay ku soo galayaan isla markaasina ay damacsan yihiin inay ku dhabar jabiyaan ciidamada Ciraaq ee ku jira gudaha waddanka Kuwait waana hawlgal kale oo ku soo kordhay hawlgalkii Kuwait lagu xoreynayay dagaal kale oo dhulka ayaa bilaabmay. dhowr toddobaad oo ay socdeen dagaaladu ciidamada waddanka Ciraaq waxa ay ku dhibaatoodeen dagaalka qaarkoodna way isdhiibeen oo calanka cadaya ay muujiyeen. Hey, let's go! Get up here! dagaalkuna waa uu sii socday meelo badan oo ciidamada Ciraaqiyiintu ay kaga sugnaayeen waddanka Kuwait waxa la wareegay ciidamada isbahaysiga. ciidamada Ciraaq waxa mar kale ay qaadeen tallaabo khasaaro u geysatay xulafadii Mareykanku oo hogaaminayay waxaana gantaalaha ridada dheer ay ku tuureen saldhigga ciidamada Mareykanku ay ku lahaayeen gobolka Dahraan oo ka tirsan boqortooyada Sacuudi Arabiya waxaana halkaas ku dhintay 28 askar Ameerikaana boqolaal kalena waxa la sheegay inay ku dhaawacmeen. waana khasaarihii ugu darnaa ee meel kaliya ka soo wada gaadha ciidamada Mareykanka tan iyo markii howlgalkani uu bilaabmay. markii saldhiggaasi ay duqeeyeen ciidamada Ciraaq Kuwait gudaheedana ay ka socdaan dagaaladu ayaa ciidamo kale oo xulafada ka tirsan waxa si toos ah ay ugu tallaabeen soohdinta Sacuudigu la wadaago Ciraaq iyagoo qorshahoodu ahaa
in dhinaca xuduudda ciraaq iyo kuweyt ay ka soo weeraraan ciidamada dalka ciraaq waxaana ay foodaystireen ciidanka ilaalada jamhuuriga oo halkaasi diyaar ku ahaa. jabkii ugu darnaa waxa uu ka soo gaaray ciidamada ciraaqiyiinta markii ciidamadooda ay isku dayeen inay ka baxaan caasimadda kuweyt isla markaasina gaadiidka xamuulka ee ciidamadu ay wateen ay ka baxeen magaaladaasi waxaana bartilmaameedsaday diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo xulafada waxaana ay burburiyeen wadooyinkii ay mari lahaayeen gaadiidkaasi hase ahaatee markii gaadiidka ay wateen ciidamada waddanka Ciraaq ay isku soo gaareen goobaha ay wadada ka burburiyeen diyaaradaha dagaalku isla markaasina ay isku soo gaareen gaadiid tiro badan waxa ku bilaabantay duqeyn baan oo lagu burburiyay ugu yaraan 2,000 oo gaadiida iyo dhammaanba ciidamadii ciraaqiyiinta ee saarnaa waxaana lagu tilmaamay khasaarihii ugu ba'naa ee soo gaaray ciidamada ciraaqiyiinta warbaahinta caalamka oo arrintaasi ka warantayna waxay ku tilmaameen xasuuq ba'an inuu ka dhacay goobtaasi. لحية صدن ساعدات كدب markii jabkaasi soo gaaray ciidamada Ciraaq ciidamadii isbahaysiguna ay si dhamaystiran u soo galeen magaalada caasimadda Kuwait dadka reer Kuwait ayaa gacmaha u ruxay oo soo dhaweyn u muujiyay ciidamada isbahaysiga iyagoo u arkayay inay ka xoreeyeen Saddam oo dhulkooda haystay muddo dhowr bilood ah. Welcome in Kuwait. Welcome, Mr. Bush. Welcome. They don't have any civilization. They kill not by guns only, by torturing. howlgalka xoreynta Kuwait xulafada Carbeed iyo reer galbeedka ka soo horjeeday Saddam Hussein waxay u ahayd hadaf weyn oo ay gaadheen si kastaba ha noqotee bishii February 28 1991 madaxweynihii xilligaasi ee Mareykanka George Bush waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin rasmi ah iyo in la hakiyay lana soo afjaray howlgalkii loogu magac daray Countdown Operation ee waddanka Kuwait lagaga xoreynayay ciidamada waddanka Ciraaq. I am pleased to announce that exactly 100 hours since ground operations commenced and 6 weeks since the start of Operation Desert Storm, all United States and coalition forces will suspend offensive combat operations. waxaan halkan u soo istaagay inaan ku dhawaaqo in dagaalkii saxaraha
ee ay ciidamada Mareykanka iyo xulafadiisu ku jireen 6 wiig iyo 100 saacadood. howlgalkaasi oo loogu magacdaray Countdown Operation in la soo afjaray. halkaasna waxaa ku soo idlaaday dagaalkii Khaliijka. kumanaan ciidamadii xulafada ahaa ee isbahaysigana waxa uu bilaabantay safar ay dalkoodii dib ugu laabanayaan. dagaalka kadib khasaaraha dhimasho ee dagaalka ka dhashay warbixinaha ka soo baxay dhanka xulafada waxay sheegteen in dagaalkaasi ay kaga dhinteen 248 askari, boqolaal kalena ay kaga dhaawacmeen. balse dhanka wadanka Ciraaq kama soo bixin war rasmi ah amaba tiro cayiman oo muujinaysa khasaaraha dhankooda inta uu leekaa. laakiin warbixinaha ay muujiyeen hay'adaha qaarkood oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin waagaasi ayaa sheegay in ku dhawaad 38 oo Ciraaqiyiin shacab iyo ciidamada isugu jira ay ku nafwaayeen dagaalkaasi. dawladda Ciraaqna si rasmi ah ugama hadal. ciidamadii ka qayb galay dagaalkaasi inkastoo ay ku laabteen wadamadoodii, ciidamada Mareykanku kama tagin gobolka waxaana ay weli sii joogeen saldhigga ay ka samaysteen dalka Sacuudi Arabiya.